السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وابقوا حنت كل يوم مدة الصومالية عبد الرحمن الصومالي هم improvements وآدي دي سلامية طاوة يا الآدي أدبان سلامية مركب لبعضنا واحد ليه الصومالي waxaan u hayaa hal talo marka guriyahan oo kale aad sameynayso imika waad aragtaan gurigan waa guri empty oo guri maran oo hadda aan sameeyno marka gurigan oo kale la sameeynayo shaqadu aad bay noogu dhib yartahay aad bay noogu fiican tahay inkastoo Soomaalidu ay taqaano dhaqan ah in gurigii oo la degan yahay oo halkan imika sida gurigan empty u yahay halkan oo dhan xamaani buuxdo oo dhar buuxo oo sariir buuxo oo mid kale waxaad moodaa Soomaalida in la yiri wax walba meel qashin dhiga baa lagu oranayaa ii dayactir waa shaqo adag weeyaan very difficult intaad wax gurayso wax jiidayso wax ma garanaysaa dharkooda kaliya ayaa ma garanaysaa ma garanaysaa shaqo marka waxaan leeyahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed horta number 1 hal talaan siinaya talada koobaad waxa weeyaan gurigiina xamaanta badan ka ururiya waxyaabaha dhibaatooyinkeedii keenaya caafimaad darradeedii keenaya guriga ku sameeya mold damp condensation ka keena weeyaan aad baan taayida ku sheegaya kow number 1 number 2 marka shaqalayda qabanay waxaan fadlan kula tan lahaa in aad ku beegataan waqtiga holiday-ga tihiin ee fasaxa aad tagaysaan salaam waliba gurigaaga marka dayactir weyn laga qabanayo ama shaqo weyn oo dayactir laga qabanayo in aad ku beegato waqtiga gurigaaga aad ka maqan tahay ee holiday aad qabanayso adiga carruurtaada maqan tihiin ama adiga carruurtaada iyo odaygaaga ama adiga carruurtaada iyo xaaskaada maqan tihiin in aad ku beegato si anaga noogu dhibaato salaam imika guriga saad aragto waa easy inaan rijeeyo hadda waa bahalahan maxay tahay leerarkan soo saar kuwan markaad soo saarto goordhow rinjigun garanaysaa inta tabier ku xidhato seelinka dhulka ha ka fargarayn weeyaan marka guriga waa guri cusub waayo floorinka waa ka bedelaya kan waa different guriga ma garanaysaa aan la deganin dhulkan uu fully ka fargaraynna tusaale ahaan waxba nagaga daadan maayaan marka waayo cid naga daba maraysa ma jirto meeshii ma garanaysaa ama ka fargarayn imika dhulkaad ka fargaraynsa marka guriga la degaya carruur ka buuxdo carruurtii baa soo galaysa meeshii aad ku ogeyd dashshiidka aad degteed bacda ku xidhay baa ay jeerayaan way ka qaadayaan haddana dib ugu xidh saacad waqtiga baa ka dhamaanaya waxa laga yaabaa mid kale in lagu yiraahdo qolkan uu ii samee marka kan dhamayso ma awoodo inaan ka wada baxo guriga baad hallway-ga sameeyay baad qolka hurdada sameeyay baad ka sameeyay qolkan bay kugu qaadanaysaa dhowr cisho sababtu waxay tahay waqtigii giant time-ka ama waqtigii qalalaada oo ku qalalayay filarkii aad marisay ama buuxbuuxintii aad buuxisay waqtigii ku qalaysay waa inaad sugtay wax kale ma qaban kartid waqti halkaanu ka samayn lahayn inaanu ka galno haddana kan galno intuu kan qalalay ka kala galno baa waxaanu hadda leenahay no choice weeyaan waa inaanu ka sugno intuu doonaha ku qalalo taasoo midda kale qalalaadii uu halka qol ku qalalayayna ay kolba ku xidhan tahay guryahoo kala duwan hawada soo galaysa iyo naqaska ka baxaya ay ku xidhan tahay qalalaadii laftarkeedii oo joint time-kii ay taasi effect garanayso ama ay saameynayso marka daawadayaal hadalka markaan soo koobo waxaan leeyahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa aniga waa abi qurxinta guriga ummadda Soomaaliyeed Somali Home Improvement Expert laftarkiis weeyaan Cabdiraxmaan waqtiga fasaxa tihiin ku beegta gurigiina inaad sameysaan waa iga talo oo marka doonaysan shaqo cajiib lagu qabto annaguna aan ku hagar baxno adiguna aan dareento nafis oo culays dareemin waayo waa guri la degan yahay carruur halkan ordayso halkan xamaan wadatay sariiro yaalaan sidan kitchadii wax lagu karinayo musqushii la galayo difficult ma adayg weeyaan runtii waa arrin aad u culus taladaasaan caawadisan laa mid kale waxaad ii sheegay dhammaantiin ummadda Soomaaliyeed ee ka daawata adduunka oo dhan imika YouTube-ka waa soo badinaya waxaan u badnaa TikTok bariyihii dambe hadda labadaba waa isku garab wadaya TikTok YouTube labadaba isku mar baan soo gelinaya aadna waa idin salaamay aabo subscribe like iyo share tahay loobina aaboy gurigan hadda waxaan ku sameynaynaa waxa loo yaqaano dayac tir